السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مالين ونكسن داود الواحد كسو دباتن برنامج كيني سؤالها كريسكا نوعية صداقة تاعو فضل بدن waxaa ugu fadli badan biyaha oo la iswaraabsho. waxaad sheegtaa magaca faraskii ugu horeeyey ee rasuulkeeni naxariis nabadgelyo korkiisa ahaatee oo ku duulo. waxaa la oran jiray sakab. waxaad sheegtaa asxaabigii malaa'igtu ka xishoon jirtay. wuxuu ahaa cismaan binu cafaan. waxaad sheegtaa asxaabigii ugu horeeyey ee lagu aaso xabaalaha baqiic. wuxuu ahaa cismaan binu madcuun. waxaad sheegtaa asxaabigii geeridiisa uu la luxmay carshiga alle. wuxuu ahaa sacad binu mucaad al ansaariyi. waxaad sheegtaa sirhaayihii ama xoghaayihii nabiga naxariis nabadgelyo korkiisa ha ahaatee. waxaa la oran jiray xudayfa binu yabaan. kumuu ahaa asxaabigii sunta cabay ee yidhi bismillaah ee aan waxba ku noqon. wuxuu ahaa khaalid bin waliid. waxaad sheegtaa asxaabigii dilay aabbihii oo gaal ah dagaalkii beder. wuxuu ahaa abu cubayda caamir bin jaraax. waxaad sheegtaa asxaabigii arkay masiixu dajaal. wuxuu ahaa tamiin binu aws. waxaad sheegtaa magaca abi ayub al ansaariyi. waxaa la oran jiray khaalid bin zayid. waxaad sheegtaa magaca asxaabigii abidar alkafaariyi. waxaa la oran jiray jundub bin junnaada. waxaad sheegtaa asxaabigii baryadiisa alle aqbali jiray. wuxuu ahaa sacad binu abi waqaas. waxaad sheegtaa asxaabigii keliya ee magaciisa qur-aanka lagu sheegay. waxa uu ahaa zayd binu xaaris. waxaad sheegtaa asxaabigii geeriis ay 70,000 ee malaa'ig soo degeen. waa sacad bin mucaad. waxaad sheegtaa asxaabigii malaa'igtu soo booqan jirtay. waxa uu ahaa cumraan bin xuseen. waxaad sheegtaa asxaabiyadii rasuulkeena sala allahu calayhi wasalam ku kafnay khamiiskiisii. waxay ahayd cali bin abi taalib hooyadiisa oo la oran jiray faadima binu asad. waxaad sheegtaa munaafiqii nabigeenu naxariis nabadgelyo korkiis ha ahaatee yidhi qofka doonaya inuu shaydaan arko kaas ha eego. wuxuu ahaa nabtaal binu acsar. waxaad sheegtaa asxaabigii hoggaamiyey dagaalkii yarmuug. wuxuu ahaa khaalid bin waalid. waxaad sheegtaa waxaa alle abuuro wixii ugu horeeyey. alle wuxuu uga hor abuuray qalinka. waxaad sheegtaa asxaabigii ugu horeeyey ee u hijrooda ardulxabash. waxaa la oran jiray cismaan binu cafaan.
waxaad sheegtaa waxa ugu horeeyey ee addoommada laga xisaabinayo qiyaamaha. waa salaada.